heshiiskii hanaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha wada tashiga qaran heshiiska hanaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 27 Maajo 2023 Muqdisho Soomaaliya. Hordhac si loo helo doorashooyin xor iyo xalaal ah oo leh halbeeg caalami ah waa in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka uu u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto. sidaa daraadeed Soomaaliya waxay hirgelinaysaa hanaan doorasho oo ku dhisan matalaad dadweyne taasoo saameyn wanaagsan ku yeelan doonta geedi socodka siyaasadda dalka iyo soo kabashada dowladnimadeena. shirka golaha wada tashiga qaran ee lagu qabtay Muqdisho 26 bishii December 2022 ayaa cadeeyay in ay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyin xor iyo xalaal ah iyo diyaarinta shuruucda iyo nidaamyada loo baahan yahay si loo gaaro yoolka doorashooyin qof iyo cod ah. heshiis siyaasadeedkan ujeedadiisu waa in la qeexo nidaamka doorasho ee Soomaaliya yeelanayso si dalka looga hirgeliyo doorashooyin xor iyo xalaal ah si nabad ah ku dhacda loona maamulo si madax bannaan dhexdhexaad ah sugan hufan oo isla xisaabtan leh kuna salaysan habraac sharci oo dhaqangal ah. baaxadda heshiiskan wuxuu cadeynayaa howlaha maamulka doorashooyinka dalka federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladaha hoose oo ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorashooyin qof iyo cod ah. mabaadi'da asaasiga ah habka doorasho iyo deegaan doorasho ee ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya yeelanayso waa in uu noqdo mid dadweynaha u suurtagelinaya inay codkooda si dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah u dhiibtaan. habka doorasho waa inuu ahaado mid dhiirigelinaya nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee dalka. habka doorasho inuu ahaado mid madax bannaan nabdoon ka maran musuq dhexdhexaad ah sugan hufan oo isla xisaabtan leh kuna salaysan habraac sharci oo dhaqangal ah. habka doorasho waa inuu ahaado mid lagu ilaalin karo matalaadda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya si loo helo cadaalad bulsho. habka doorasho waa inuu ahaado mid horumarinaya wadajirka bulshada iyo muqaddasnimada midnimada Soomaaliya. habka doorasho waa inuu ahaado mid kalsooni gelinaya dadka Soomaaliyeed in danahooda ay si habboon u matalaan wakiilo ee iyagu u soo doorteen. waluhu wuxuu isagoo ambaqaadaya mabaadi'da kor ku xusan wuxuu ku heshiiyey qodobada soo socota. qodobka koowaad hanaanka doorashooyinka. golaha wada tashiga qaran wuxuu ku heshiiyey inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo kaliya. hanaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonayaa nidaamka matalaadda isu dheelitiran ee liiska xiran proportional representation closed list. liisaska xisbi walba waa in aysan ka badnaan laab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo. qodobka labaad deegaan doorasho. golaha wada tashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency. qodobka saddexaad golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kuraasta loo tartamayo ee golaha shacabka waa 275 xubnood waxayna matalayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. xubnaha golaha shacabka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kuraasta golaha shacabka waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan. qodobka afraad golaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqonaysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. matalaadda xubnaha aqalka sare ee gobolka Banaadir waxaa lagu qeexi doonaa maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya.
qodobka shanaad golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. kuraasta golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu dooranayaa deegaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya. kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada. qodobka lixaad dowladaha hoose. xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toosa usoo dooranaya bulshada deegaanka. kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada. labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalku yeelan doono. qodobka toddobaad nidaamka madaxtinimada dalka. si loo mideeyo hanaanka doorasho ee hoggaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loona dardargeliyo habsami socodka dowladnimadeenna waxaa dalku uu qaadanayaa nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan. qodobka sideedaad mideynta muddada doorashooyinka. doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa qof iyo cod oo 5tii sanaba hal mar ah. si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan sida soo socota. dowladaha hoose waxay doorashadooda dhici doontaa 30 Juun 2024. golaha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. qodobka sagaalaad qoondada haweenka. si loo xaqiijiyo meelmarinta qoondada haweenka goluhu wuxuu isku raacay in la diyaariyo heshiis gaar ah. qodobka 10aad xaaladda Somaliland. kuraasta Somaliland ee aqalka sare wuxuu golaha wadatashiga qaran ka gaari doonaa heshiis gaar ah. qodobka 11aad gobolka Banaadir. degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah waxayna dhacaysaa 30 Juun 2024. qodobka 12aad maamulka doorashooyinka dalka. waxaa la dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ah hay-ad madax bannaan oo u xilsaaran dhammaan maamulidda iyo qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo sohdimaha. guddigu wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood oo ka kala imaanaya 3 xubnood oo ka mid ah waxay ka imaanayaan dowladda federaalka Soomaaliya. 2 xubnood waxay ka imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. 3 xubnaha guddiga waxaa lagu soo gudbinayaa muddo bil gudaheeda laga bilaabo taariikhda la saxiixay heshiiskan. amniga iyo habsami socodka doorashooyinka waxaa mas'uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha. dhammaad saxiixayaasha heshiiskan mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha dowladda Jubbaland Soomaaliya. mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha dowladda Galmudug Soomaaliya. mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Soomaaliya. mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. وبالله التوفيق.